arrin ciyaar ma ahayn arrin waxay runtii dib fara badan oo ka jiray oo dadka shacabka lagu kacashay oo shacabka runtii loogu talagalay xataa in dawladda lagu dumiyo waa sheegi karaa hadii loo baahdo cadeey karaa aniga dalkan institution soo leeyahay madaxweyne uu leeyahay madaxtooyo xukuumad prime minister wasiiro taliyayaal aniga moona baarlamaan ka tirsanahay siyaasiyiinta isku daya barnaamijka lugtii galiyeen waxaan leeyahay arrintaas arrin qalad ay heeday waxaan rabaa qof kale shaqada uu leeyahay in lagu ogaado inta haddaan uu gudbo sababta sidaa u leeyahay waxaan ogahay shirarka la qabtay habka loo abaabulay habka loo shaqeynayay iyo habka la rabay in xukuumadda loo dumiyo waa ka baxsanahay iyo shirarka la qabto dad fara badan jooga abaabuleen waxaan rabaa inaan sheego xukuumadda lix bilood jirta wax badan ay qabatay qof sheega waxay qabatay xataa ma arkin dhaliilo ma ahayn haddii hooyo uur leh oo lix bilood uur leh aad isku daydid inaan tacabad ku dhufataa cunug ka soo rido adigana waxaa ku sugaya cunuga saddex bilood banaan ku risid ilaa cunuga barmajoor noqonaa moogtahay marka waxaan ka digaa in laga fiirsado in siyaasadda looga faa'iideysto in ama shakhsiyaad taradgareeyo ama la isku dayo qalad kastoo dhaca in shacabka lagu marar haabiyo in lagu baabiyo qalad waa dhici karaa in la saxaa loo baahan yahay ma ka shaqeeyeen dadka barnaamijyada abaabulaya inay qalad saxaan kama shaqeyn waxay ka shaqeeyeen inay shacabka magaalada jooga kacashaan shacabka Soomaaliya kacashaan shacabkaan la kiciyeen dawlad fara badan soo dumiyo waqtiin xalna uma yeesin hadii shacabku kaco shacabka naga hagna shacabka naga ma hadii lagu haga xumaan iyo in la burburiyo madaxa qaranka lagu daranay kii maada brito isagoo dalka maamul karo waxaan jeclaanahay waliba waxaan si gaar ah la hadlaa xildhibaanada baarlamaanka ku jira ee afarta sano la soo dhaafay koor dalka madaxa ka ahay ee lix bil dul qaadala waxaan rabaa dul qaataan rabaa anaga saddex sano dul qaadanay arbaa isku darnay sida wasiir la'aanta noolada baranay faraskaas la noolna idinkana barta hadaa baradii diin barnaamijka waxa ka dhaca anaga soo kacayna marka joojiya arrintaas waxaan soo aadaa mid xalku waxa waaye saakan isku nimiday halkaas aan fariisanay guddoonka la joogay waxaan isku daynaa xal aadno runta xalku waa la diidanaa xalku wuxuu ku jiray xaqiiqda dhabta in la helo barnaamijyada go'aamada si lagu gaaray sababta keentay mas'uuliyadda dadka iska lahay waa la diidan lahaa waxa la baarlamaanka tagaynaa waa doodaynaa shacabkana ogaana shacabka maanta waan ogaada doodeen go'aanka laga gaaraa guddoonka baarlamaanka u dhaafo maasantiin aad baa maasantahay waxaan u yeeray